farmaajo iyo xasan sheekh yaa dhisay ciidanka Soomaaliya waa warbixin aan banaanka ku soo dhigi doono farqiga u dhaxeeya labada nin iyo halka uu mid walba ciidanka ugu yimi iyo meesha uu geeyay muuqaalkan like fara badan saara si uu gaaro meel fog ana hilmaamin inaad YouTube-keena subscribe saarato gambaleelkana aad furato ku mahadsanid sanadkan ayadoo la xusayo 12 Abriil ee asaaska ciidanka xoogga dalka ayaa waxa ka dhashay hadalhayn fara badan waxaana dood adag ay dhalisay labada madaxweyne Farmaajo iyo Xasan Sheekh mid ka dhisay ciidanka halka labada nin taageerayaashoodu ay si adag ugu dagaalameen warbaahinta bulshada haddaba midkee ayaa dhisay ciidanka haddii aan ku horeyno madaxweyne Xasan Sheekh 2012 ayaa loo doortay madaxweynaha Soomaaliya wuxuu xilligaas yimi iyadoo aysan jirin ciidan aan tiradooda la aqoon haysan tababar mushaar caafimaad hub iyo gaadiid dagaal wuxuu bilaabay madaxweyne Xasan Sheekh inuu isku dubarido ciidanka mushaar u bilaabo tira koobo hoggaan u sameeyo uu dhiso goobo caafimaad oo u gaara xeryo iyo tababar u furo heshiisna uu la galo dawladda Turkiga waxaana lagu tilmaamay go'aankii ugu adkaa ee uu qaato madaxweyne Xasan Sheekh kaasi oo uu la galay heshiis rasmi ah dawladda Turkiga wuxuuna si degdeg ah uga bilowday gudaha dalka iyadoo Muqdisho laga hirgeliyay xerada ugu weyn ee maanta lagu tababaro ciidanka Soomaaliya wuxuuna ciidanka gaarsiiyay meel fiican oo laga sii ambaqaadi karo intaas kadib waxa yimid nidaamkii madaxweyne Farmaajo oo xilligaas loo arkayay inuu yahay midkii dalka ka saari lahaa al-shabaab amniga dalka kala wareegi lahaa amisom dalkana ka qaban lahaa doorasho qof iyo cod ah haddii aan eegno waxqabadka Farmaajo ee ciidanka madaxweyne Farmaajo wuxuu xoojiyay heshiiskii Turkiga uu la galay Xasan Sheekh ee ahaa tababarka ciidanka wuxuuna xareeyay ciidankii wuxuu u sameeyay diiwaangelinta casriga wuxuu u kordhiyay mushaarka waxa in badan oo kamid ah loo qaaday dalka Turkiga si halkaas loogu siiyo tababar heerkiisu sareeyo sidoo kale Farmaajo wuxuu dhisay ciidanka cirka iyo badda wuxuuna xoojiyay awoodda ciidanka Soomaaliya taasi oo gaadhay meel qurxoon oo caalamka iyo shacabka Soomaaliyeedba soo jiidatay markii la isbarbar dhigo labada nin Farmaajo iyo Xasan Sheekh labaduba shaqo wax ku ool ah ayay qabteen waxayna mudan yihiin mahadcelin bogaadin iyo dhiirigelin daawade madaxweynaha u aragtaa inuu ciidanka dhisay Farmaajo iyo Xasan Sheekh Maxamuud fikirkaaga nala wadaag